kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka waxyaabaha ugu waaweyn ee halkan idinkugu soo gudbi doonana waxa qayb ka falcelin xoogan oo ka dhalatay go'aankii xukuumadda federaalka ee Soomaaliya shalay ay ka qaadatay ururka ONLF oo sheegtay in laga saaray argagixisada hore xukuumaddii ka horeysay ugu aqoonsatay cabdikariin muuse qalbi dhagax oo ka hadlay go'aanka dowladda federaalka ee Soomaaliya sheegan in qof kastoo dambi dalka ka galay ay kula xisaabtami doonaan ciidanka ugu badnaa oo ku maqnaa dalka la tiriyo oo la qorsheynayo in la soo gaarsiiyo caasimadda dalka iyo qorshe cusub oo laga damacsan yahay ciidankaas haddaba muxuu yahay lix arrin oo sabab u ah amni darrada iyo dalalka qorsheysan oo magaalada Muqdisho maalmihii dambe ku soo kordhay warbixin ayaan warka idinkugu soo gudbin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashada Soomaaliya ayaan warkeena ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal ee u diyaar garooba markale kulan wacan oo wanaagsan waa isniin taariikhda ay ku beegantahay 24 January 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku bilowno falcelin xoogan ayaa ka dhalatay go'aankii xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee shalay sheegtay in laga noqdo go'aankii xukuumaddii hore ee ururka ONLF ee hore ugu aqoonsatay inay ka tirsan yihiin argagixisada shacabka iyo inta badanba siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyay go'aankii shalay golaha wasiirada Soomaaliya leeska looga saaray ururka argagixisada oo hore xukuumaddii hore ugu aqoonsatay ururka ONLF sidoo kalena cabdikariin muuse qalbi dhagax gacanta loo geliyay Itoobiya siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore oo kale Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed hogaamiyaha xisbiga wadajir xildhibaano hore ayaana arrintaas aad u soo dhaweeyay iyagoona sheegay in xukuumadda ra'iisul wasaare Roble tilaabada ay qaaday ay ku bagaadinayaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa qayb ka ahaa dadka soo dhaweeyay go'aanada xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ay qaadatay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ka mid ahaa madaxda ONLF ayaa soo dhaweeyay go'aanka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ururkaas looga saaray leeska argagixisada oo ay gelisay xukuumaddii hore Xasan Cali Khayre qalbi dhagax ayaa sheegay in socdo abaabulka dibadbax lagu taageerayo go'aankan leeska argagixisada looga saaray ururka ONLF wuxuuna kaga mahad celiyay xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu qaaday tilaabo isku soo dhaweyn wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed qalbi dhagax ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kala hadlay leeska looga saarayo ururka xubnaha ka yahay ONLF balse la xisaabtami doonaan qof kasta oo dalka dambi ka galo ra'iisul wasaaraha mar hore ayaan ka wada hadalnaa arrintan waxa uu nigi sheegay inuu ku jiro sida qaraarka xaaraanta meesha looga saari lahaa muddo kadibna oo aan wada sugayno ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa go'aankaas way fuliyeen waana kaga mahad celinaynaa ayuu yiri qalbi dhagax cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ayaa sheegay in ururku taalo uu ku reebo go'aankii lagu gacan geliyay Itoobiya oo dagaal adag uu kala dhaxeeyo ururka ONLF oo xubin uu ka yahay sidoo hadalka u dhigay dhankiisa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in go'aanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaadatay arrinta ONLF ay tahay tilaabo aad u wanaagsan isla markaana ay soo dhaweynayaan waxaana xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaga mahad celiyay tilaabada wanaagsan uu qaaday maadaama sheegay in ururkaas markii horeba magaca iyo sidoo kale leeska lagu daray aysan ahayn mid aysan mudnayn balse ay tahay dad ku hawlanaa sida ay xornimo u heli lahaayeen Soomaalida ku dhaqan dalka Itoobiya arrinta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xukuumaddiisa ay leeska ururka argagixisada looga saaray ONLF ayaana mid hadal hayn badan dhalisay iyadoona xukuumaddii tan ka horeysay Xasan Cali Khayre lagu eedeeyay inuu ku shaqeynayo aragti gooni ciidanka ugu badnaa ee ku maqnaa dalka la tiriya ayaa lagu wadaa in toddobaadyada soo socda ay soo gaaraan magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxa dhawaan dalka dib loogu soo celin doona ciidanka muranka badan dhaliyay ee tababarada lagu qaada wadanka la tiriya sida ay noo xaqiijiyeen jeneraal ka tirsan ciidanka xoogga dalka horraanta bisha soo socota ee Febraayo ayaa la filayaa in ciidankaasi la keeno magaalada Muqdisho waxaana loo diyaariyay in la dejiyo xerada General Gordon halkaas oo wixii deganaa lagu amray inay isaga guuraan taliyaha ciidanka dhulka General Maxamed ee Tahliil Biixa ayaa degan xeradaas balse isaga iyo xubnihii kale ee deganaa xeradaasi General Gordon waxa la sheegay inay baneeyeen si halkaasi loo dejiyo ciidanka laga keenayo dalka la tiriya sida saraakiisha ay noo xaqiijiyeen tirada ciidanka laga keenayo dalka la tiriya waxay gaarayaan 7,000 oo askari waxayna u qaybsan yihiin 5,500 oo ah ciidanka xoogga dalka iyo 1,500 oo isugu jira boolis iyo nabad sugid saraakiisha waxay sheegeen in askari walba oo kamid ah ciidanka la soo waday inuu mushaar ahaan u qaadan doono $300 kaas oo ka dhigan inay xagga mushaarka kala simi doonaan ciidanka la yiraahdo Gorgor oo mushaar ahaan u qaata $300 Gorgor ayaa ka hela $200 dowladda Turkiga oo tababarto iyo halka 100 ay ka qaataan dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidanka Soomaaliya ee ku sugan wadanka la tiriya ayaa dhawaan loo jeediyay eedeymo culus oo shacabka ku nool gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay u geysteen xasuuq baan iyagoo la safan ciidanka la tiriya
wargeys ka soo baxa dalka Canada ayaa goobjoogayaal wareysta waxay sheegeen in militariga Soomaaliya ay la socdo ciidanka Eritrea xasuuq ka geysteen gobolka Tigray bishii hore intuu socday dagaalka ka socdo gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Ciidamadan ayaa hadal hayn badan dhaliyay waxaana la qorsheenayaa in dhawaan dalka dib lagu soo celiyo iyadoo siyaasiyiinta qaar u arkaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya oo madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaamiyo uu kale yahay ciidanka dana gooniga isla markaana doorashada intuu socoto kaga faa'iideysan doona arrimaha siyaasadda waa sida dad badan qabaan. ciidamadan ayaa sida la qorsheenayo yahay in ay si gooni ah uga howlgalaan gobolada Jubbooyinka iyo Baay si ay uga saaraan iyo Shabeellada Hoose ururka Al-Shabaab oo halkaas ku sugan. magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaa bilihii dambe aad u soo badanaya dilka iyo dhaca loo geysanayo dadka ku nool caasimadda dalka. magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay mar kale ku laabatay dariiqa dilalka iyo tirabeelka ahaa walwalkii iyo cabsida haysata shacabka caasimadda ku nool ayaana laba jibaarantay labadii bilood ee lasoo dhaafay. saddexdii toddobaad ee ugu dambeysay waxaa naadir ah in habeen ama maalin ah Muqdisho lagu toogan qof shacab sida aynu xogtaasi ku helnay 3 waji ayaa dilalka dadkan shacabka loo fuliyaa. qaar waa kuwo qorsheysan oo laamaha amniga dowladda Soomaaliya ay sheegaan inay fuliyaan kooxaha ururka Al-Shabaab. qaar waxaa fuliya burcad oo ka tirsan ciidanka dowladda oo raba inay dhacaan dadka shacabka ah. kuwo kalena waxaa dhaliya isticmaalka saayidka ah ee daroogada oo si ba'an ugu faaftay caasimadda dalka taas oo saameyn xooggan geysatay. dadka magaalada Muqdisho waxay isku dhinac wadaan cabasho iyo sidoo kale aaska meedadka mana muuqato qorshe degdeg ah oo wax looga qabanayo arrintani. dalku waxa uu ku jiraa xilli doorasho dad badanna waxay isku weydiinayaan maxaa sabab u ah dhibaatooyinka amni darre ee caasimadda iyo ciriiriga xilligaani. dhowr arrimood ayaa loo arkaa in sababtan ay ka dambayso dhibaatada xooggan waxaana qayb ka ah khilaafka xooggan oo haatan ka dhaxeeya maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wada shaqayn la'aanta shacabka iyo laamaha amniga taas oo meesha ka saartay in si joogto ah looga hortago falalka amni darrada caasimadda oo soo kordhay. sidoo kale dadka ku kaca dambiyada falalka dilalka in loo horkeeno maxkamad ama lagu fuliyo sharciga wuxuu ka qabo taas oo yaraatay. madaxda ciidanka oo aada siyaasadda oo tira dhowr jeer looga degay inay saameyn ku yeeshaan kuna lug yeeshaan siyaasadda dalka xilligan uu ku jiro. khilaafka madaxda sare ee dalka oo marba marka ka dambaysa sii kordhaya ayaa qayb ka ah dhibaatooyinka haatan magaalada Muqdisho ka taagan. wada shaqayn la'aanta ciidanka iyo shacabkana waa mid ugu daran oo dalka haatan ay wajahayaan. marka la joogo magaalada Muqdisho waxaa aad u yar cilaaqaadka ka dhaxeeya laamaha amniga iyo shacabka taas oo sababaysa inay soo bataan falalka amni darre caasimadda waayihii dambe ku soo kordhay. sidoo kale maandooriyaha magaalada waxaa sidoo kale ku soo badanaya ka ganacsiga maandooriyaha iyo isticmaalkiisa kaas oo sababaya dhibaatooyin xooggan. inkastoo maamulka gobolka Banaadir tira dhowr jeer ku celceliyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugula dagaalamayaan si loo yareeyo saameyntiisa. haddaba maxaa xal u ah dhibaatada haatan Muqdisho ka jiro? dad badani waxay qabaan haddii hoggaanka ciidanka ay ka soo haraan siyaasadda oo shaqadooda xoogga saaraan oo khilaafka madaxda sare ee hay'adaha amniga la kala ilaaliyo in la abuuri karo aragti cusub oo wada shaqeyna oo ay ku wada shaqeyn karaan shacabkii hay'adaha amniga si buuxda loola dagaalamo daroogada si degdeg ahna looga hortago cid kasta oo dhibaato ka geysanaysa oo gacan bira lagu qabto amniga magaalada Muqdisho. taasi waa xeelada ugu dhow oo lagu sugi kara amniga caasimadda dalka oo haatan doorasho ay dhankeeda ka socoto waxaana siyaasadda kacsan ee caasimadda marba marka ka dambaysa ay ka sii daraysa amnigeeda oo xal loo leeyahay. Cali Yara Cali gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir tira dhowr jeer oo warbaahinta la hadlay waxa uu ka dhawaajinay amniga caasimadda ay mas'uul ka yihiin jirina cid ay kala hadlayaan inta ay doorashada socoto. wasaaradda amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir wada shaqayn la'aantooda waxaa sabab u ah dhibaatooyin badan oo haatan magaalada Muqdisho dadka ku soo wajahay. inta ayaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal barnaamij wareedka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News. mid lamid inta kulmi doona khayaaray nabadgelyo.